waa laba qabiil oo deegaan iyo daaqsin wadaag ah laakiin uu ka dhaxeeyo sooyaal aad u xanuun badan xasuuqiyo dagaallo aan waxba la isku reeban isirsifayn isaga kala gudubtay xuduudaha in ka badan 3 dal labadan qabiil ayaa xilli ka mid ah xilliyada ay ka dhaxaysay ilya aragti ka hor intaysan xaaladoodu sanadihii dambe xoogaa soo qaboobin waxaynu u jeednaa labada qabiil ee wadadega dalalka bariga iyo bartamaha Afrika ee Hutuga iyo Tutsiga muuqaalkeenna maanta ayaynu ku eegi doonaa meesha uu salka ku hayo isirnacaybka u dhaxeeya labadan qabiil meesha uu ka bilowday iyo waxa ka dhigaya mid aan weli damin si kasta oo dadaalo muuqda iyo kuwo qarsoonba lagu bixiyay magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar halkanina oo waa Bari Media ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta qabiilada Hutuga iyo Tutsigu waxay wada degaan in ka badan 3 dal oo ku yaala bartamaha iyo bariga Afrika dalalka Rwanda iyo Burundi ayay ka yihiin kuwa ugu badan halka dalka Congo ay sidoo kale wada degaan Congo inkasta oo markii hore aysan degaan xooggan ku ahayn haddana dagaaladii u dhaxeeyay ee muddada jiitamayay ayaa keentay in ay u guuraan si kala gooni ah qaybo badan oo ka mid ah dalka baaxadda weyn ee Congo sooyaalahan Hutuga waxa la sheegaa in ay ka soo guureen deegaano ka tirsan dhulka Chad inkasta oo xogaha qaar ay sheegaan in Hutugu dhulka ay maanta degaan asal ahaan u leeyihiin oo aysan meel kale ka imaan halka Tutsiguna ka yimid dhulka buuraleyda ah ee xiga geeska bari ee Afrika gaar ahaan xuduudaha Suudaan iyo Itoobiya waxay isla soo degeen dhulka maanta loo yaqaano Rwanda iyo Burundi oo ka hor sanadkii 1962 isku ahaa hal dal Hutuga ayaa ku soo horeeyay dhulka wuxuuna ahaa qabiil beeraley ah halka Tutsiguna ahaa xoolo dhaqato gaar ahaanna waxay dhaqan jireen lo'da Tutsiga ayaa markii ay soo gaareen dhulkan waxay sameysteen boqortooyo iyaga u gaar ah waqti ku aadan qarniga 15aad ee miilaadiga boqortooyadan ayaa isku fidisay dhulka u dhow gobolka harooyinka waaweyn Tutsiga ayaa ahaa baalka sare ama dadka hantida mansabka iyo maamulka gacanta ku hayay muddo qarniyo ah xilliyo badanna waxaa dhici jiray dagaallo qabiil oo dhex mara kuwaasi oo ay Hutugu ku diidanayeen talada Tutsiga markii ay gumaystayaashii reer Yurub kala qaybsadeen dhulalka Afrika Jarmalka ayaa qayb ahaan u helay dhulka Rwanda iyo Burundi oo ah deegaanka ugu weyn ee labadan qabiil Jarmalka markii lagu jabiyay dagaalkii koobaad ee dunida waxa la kala qaybsaday maxmiyadihii hoos imaanayay dhulka Rwanda iyo Burundina waxa la wareegay gumaystihii Biljamka gumaystahan cusub ayaa dejiyay istaraatiijiyad uu ku doonayay inuu ku kala dhantaalo awoodda labadan qabiil waxa uu saaxiib dhow ka dhigtay Tutsiga kuwaasi oo askar iyo shaqaale u noqday gumaystaha waxaana cadaadis badan la saaray Hutuga oo ahaa kuwa tira ahaan ka badan Tutsiga sidoo kalena cadaawad hore ay dhex taalay iyaga iyo Tutsiga Hutuga ayaa laga ilaaliyay xarumaha maamulka sidoo kale qofkii iyaga ah ee diidmo iskaashiga gumaystaha Biljamka iyo Tutsiga ah laga dareemana waxa la martiin jiray ciqaab adag iyo xabsi ay gacanta ku hayeen Biljamka iyo Tutsiga oo la shaqaynayay Biljamka ayaa sidoo kale shacabka u sameeyay aqoonsiyo ay ku qoran tahay qabiilka uu yahay si ay u sahlanaato in la kala aqoonsado Hutuga iyo Tutsiga ficilada gumaystaha iyo tacadiga Tutsiga oo gacan ka helayay Biljamka ayaa keentay inuu sanadkii 1952 qarxogadood aad u adag oo ka yimid Hutuga kaas oo isku bedelay dagaallo aad loogu xasuuqay Tutsiga in badan oo Tutsi ahna sababay in ay dhulkoodii ka qaxaan si ay uga magan galaan dagaalada labada qabiil dhex maray qoysaskii Tutsiga ee waqtigaasi qaxayna waxa ka mid ahaa qoyska madaxweynaha Rwanda ee Paul Kagame oo dalka Uganda galay sanadkii 1962 Burundi iyo Rwanda ayaa kala noqday laba jamhuuriyadood oo kala madax bannaan balse labadii qabiil ee Hutu iyo Tutsi ayaa labada dhinacba noqday kuwo ka wada tirsan waxaana bilowday khilaafaad siyaasadeed oo la kowsaday labadii dal ee cusbaa dagaalada iyo isirnacaybka ayaa ugu dambeyn sababay in labada dalba ay la wareegaan Hutugu folkaanada ugu daran nacaybkan ayaana kacday sanadkii 1994 markii maalin qura la wada dilay madaxweynihii Burundi iyo madaxweynihii Rwanda oo labaduba ahaa Hutu dilkoodana ay geysteen jabhad Tutsi ah oo ka dagaalamaysay Rwanda caradii Hutugu ay dhacdadan ka qaadeen ayaa sababtay in xasuuq aan loo meeldayin ay u geystaan Tutsiga waxa la xasuuqay dad ku dhow 1 milyan oo qof
oo in ka badan 90% ay Tutsi yihiin. Meydadka ayaa buux dhaafiyey goob kasta oo ka mid ah caasimadii Kigali iyo deegaanada u dhow. Ugu dambeynna waxaa Rwanda xoog kula wareegay jabhaddii Tutsiga oo saldhig ku lahayd dalka Uganda oo uu hogaaminayay Paul Kagame. Markii ay talada la wareegeen Tutsigu, waxaa dalka ka qaxay tiro aad u badan oo Hutu ah oo ka cabsi qabay in ay la kulmaan argoosi, waxayna qaxooti ku noqdeen dalalka Congo, Uganda iyo Tanzania. Dalka Burundi ayaa sidoo kale waxa ka dhacay dagaal sokeeye oo socday sanadihii u dhaxeeyay 1993 ilaa laga soo gaaro 2005, kaasi oo u dhaxeeyay jabhado kala taabacsanaa labada qabiil. Dagaalkan ayaa Burundi dhaxal siiyey in ay noqoto dalka curiyaamay dhinacyada horumarka nolosha iyo siyaasadda. Dagaalka ayaa ugu dambeyn waxa uu noqday mid soo afjarmay markii ay Hutugu madaxtinimada dalka la wareegeen, sidaana looga awood batay jabhadihii Tutsiga. Markii uu dhammaaday dagaalkii tooska ahaa ee u dhaxeeyay labada qabiil, waxaa dalka Rwanda looga dhawaaqay iscafin iyo in raadraaca wixii dhacay lagu soo koobo maxkamadaynta dadkii lahaa mas'uuliyadda ugu weyn. Sidaasi ayuuna gudaha Rwanda uga soo afjarmay khilaaf iyo colaad cusub oo dhex marta labada qabiil, balse dabka nacaybka iyo dagaalada qabiilka ayaa noqday kuwo si joogto ah uga dhaca goobo ka baxsan xuduudaha Rwanda iyo Burundi. xudunta khilaafka labada qabiil ayaana u gurtay gudaha dalka Congo. Ciidanka Rwanda ayaa xilliyo badan lagu eedeeyay inay gudaha u galeen dalka Congo si ay gacan u siiyaan kooxo Tutsi ah oo dagaal kula jiray kooxo kale oo Hutu ah gudaha dalkaas, halka Tutsiguna ku eedeeyay ciidanka Congo iyo kuwa Burundi inay gacan siinayaan kooxaha Hutuga ah. Dowladaha Congo iyo Rwanda ayaa bishii afraad ee sanadkan 2023 midba midka kale ku eedeeyay inuu hurinayo dagaalo qabiil.